بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو هروح عن وصل هذا الني Java FX iyo MySQL ayadoo la isticmaalayo in aan isku xirno application keeni iyo database-ka. waxaan soo aragnay sida database-ka application-ka loogu xiro haddii ahaan lahayd inaan login form sameynay, sidoo kale aan sameynay registration page oo ah form ama window loogu talagalay in laga register gareeyo. tusaale ahaan waxaan kusoo aragnay inaan insertion sameyn karno, in sidoo kale edit gareyn karno ama update aan sameyn karno. waxaan kala soo aragnay inaan delete gareyn karno wixii aan qaladnay oo kale, sidoo kale clear iyo maxaa la dhahaa insertion aan sameyn karno. waxaas oo dhan markaan sameynaynay waxaan isticmaalaynay statement. waxaan arki doonaa hadduu ilaahay idmo inaan isticmaalno mid loo yaqaano prepared statement. prepared statement waxay ka bedelan tahay statementigii, way hoos tagtaa laakiin si yar ayay uga fududahay waana ka fiican tahay markii loo fiiriyo xagga isticmaalka. waxaan arki doonaa marka qaabka loo isticmaalo, maxay tahay, sidee loo abuuraa, sidee parameters loogu set gareeyaa, sidoo kale waxaan arki doonaa sidee loo execute gareeyaa haddii aan u baahanahay inaan fuliyo statementigii preparedka oo ii diyaarsanaa. waxaan ka bilaabi doonaa marka hadduu ilaahay idmo outline-ka aan arki doono waa afartan. muxuu yahay prepared statement, sidee loo abuuraa, sidee parameters loo siiyaa, sidoo kale waxaan arki doonaa haddii aan u baahano inaan execute gareyno sideen u execute gareyn doonaa. mid aan dul istaagi doonaa hadduu ilaahay idmo. waxaan ka bilaabeynaa prepared statement muxuu yahay. prepared statement marka ugu horeysaba statement-yaa soo aragnay, oo haddii aan rabo inaan execute gareeyo SQL query waa in statement uu ii diyaarsan yahay. si lamida sidaas oo kale waxaa jira mid kale oo lagu magacaabo prepared statement, waa precompiled SQL statement. SQL statement hore loo compile gareeyey oo diyaarsanaay, hadhowdii keliya waxaa siin doontaa parameterskii. prepared statement-igu marka muxuu naga caawinayaa, faa'iidooyinka uu leeyahay intaana kasoo qaadanay. number one, waxaa kuu fudud in prepared statement-iga aad parameters siin kartid. parameter haddaad u baahatid ood set gareyn kartaa. number two, waxaa kuu fudud in dhowr parameter oo kala duwan aad siin kartid. tusaale ahaan insertion aan sameynaa, dhowr row oo kale hal mar waa insert gareyn karaa anoo isticmaalayo parameters kala duwan. sidoo kale waxyaabaha ay sameyso waxaa ka mid ah faa'iidooyinkeeda inay ka hortagto SQL injection attacks oo databaseska attack lagu soo sameeyo oo kale oo loo yaqaano SQL injection, in uu prevention ku sameeyo ama uu ka hortago. sidoo kale wuxuu improve gareynayaa ama uu horumarinayaa application-kaaga performance-giisa, maadaama SQL statement-igani uu yahay precompiled. wuxuu sameyn doonaa marka in performance-ga application-kaaga uu fiicnaado marka loo fiiriyo midka isticmaalayo statement oo ka performance fiicnaan doonaa midka isticmaalayo prepared statement-iga. waxaa marka performance-ga xagga marka laga fiiriyo ku fiican prepared statement. faa'iidooyinkiisa marka waa aragnay. number one, in oo parameters isticmaali karo, in parameterada dhowr jeer aan isticmaali karo oo reusability-gii faa'iidooyinkiisa ay ka mid tahay, in injection attacks-ka SQL lagu sameeyo inuu ka hortago, performance-giina uu ii fiicnaado. prepared statement marka waa aragnay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay. sidee u abuuri doonaa marka? intaanan gudagelin sida loo abuurayo aan fiirino labadan statement. midaan ugu horeyso query-gan haddii aad fiirisid waa statement ayaa lagu execute gareyn doonaa. waxaa la isticmaalay select star from employee, table-kaas waxaa laga soo aqrinaa xogta ku jirto, where salary-guna uu ka weyn yahay ama la egyahay 600, department-giisuna uu yahay IT. values-ki marka waa la sheegay. kan hadda waxaa la isticmaali doonaa waa statement. haddii aan rabo markaas prepared statement inaan isticmaalo, waxaan u set gareyn doonaa parameterskii placeholders. tusaale ahaan meeshii aan dhihi lahaa where salary-gu uu ka weyn yahay ama la egyahay 600, waxaan dhihi doonaa question mark. question mark-gaas oo u dhiganto placeholder. hadhow waxaa u isticmaali doonaa in aan usoo baas gareeyo ama aan u set gareeyo parameter. sidoo kale department-ga meeshii IT aan dhihi lahaa waxaan leeyahay equal question mark, oo micnaheedu tahay placeholder ayaa meeshaan yaalo oo hadhow parameterka aad rabtid ama IT aad soo siin kartaa, ama maxaa siin kartaa HR, ama waxaa soo siin kartaa developer, wixii uu noqdo markaas. different kinds of maxaa la dhahaa values ayaa soo siin kartaa.
hadda labadan statement markaa isku fiirisid reusability-goodu midaan ayuu fiican yahay oo in dhowr jeer aad parameter usoo baasgaraysid, halka midkan valueskiisu ay yihiin fixed oo markaas un la sheegay. kana marka isticmaali doonaa hadduu ilaahay idmo, kan waa soo aragnay, kan ayaan tijaabin doonaa iyo qaabka loo sameyn doono. haddii aan hore usii socono prepared statement markaa rabo inaan abuuro, waxaan sameyn doonaa SQL query-geygii delete from employee tablekaas where employee ID gu la egyahay question mark, value-ga ma sheegi doono. marka hadhowdi markaan inta imaado waxaan dhihi doonaa prepared statement-geyga object aan ka abuurtay connection dot prepared statement SQL, ama waxaan u baasgareyn doonaa query-ga meeshaan ii yaal. hadda marka waxaa liga baahan yahay inaan setgareeyo ID-gaas waxa uu noqon doono. sida ujeedna marka hadda meeqa parameter u qaadan doona, waa hal parameter soo maa, keliya hal question mark ku jirto. haddaan marka parameterskaas inaan values u setgareeyo, waxaan fiirin doonaa number 1 data type-kooda, number 2 waxaan fiirin doonaa positionkiisa. tusaale ahaan hadda parameterkan parameterkii koowaad positionka uu qaadan doono waa 1. parameterska marka positionskoodu wuxuu kasoo bilaaban doonaa 1, waa 1 based indexkii oo kale maahan oo 0 based ahay, from left to right dhankaan kasoo bilaabi doontaa. hadda waa hal parameter, hadday parameter kale dhankaan sii jiraan, kan labaad 2 uu qaadan doonaa, kan saddexaad 3. hadda marka ID variable-kaas waxa ku jiro waxaa loo setgareyn doonaa placeholder-ka 1 markii la yiraahdo micnaheedu waxay tahay parameterka koowaad waa midkan, haddii mid kale intuu sii jiro sidaas ku socon doonaa. waxaa waajiba marka parameterkan data type-giisu iyo placeholder-ka inay iswaafaqaan. haddii data type-ka aad kala bedeshid ama ay iskhilaafaan, hadhowdi meeshaas waxaa ka imaan doono SQL exception. hadda marka prepared statement-ga waa abuuranay oo query-giisa wato ID maxaa la lahaa parameterskii waan u setgareynay. sidee execute gareyn doonaa marka? haddaan rabto marka inaad execute garaysid wuxuu la mid yahay sidii statement-gii oo kale, ay isticmaali doontaa execute query ama execute update, mid ay noqoto ayaga ayaa isticmaali doontaa. hadda anaga marka waxaan tijaabin doonaa hadduu ilaahay idmo inaan meeshii aan isticmaalnay statement inaan ku bedelno maxaa la lahaa prepared statement. waxaan tegi doonaa IntelliJ-geena. hore waxaan usoo aragnay marka student ayaan soo register gareyneynay. haddii aan imaano hello controller, meeshaan safe markii aan dheheyno waxaan sameyn jirnay in aan isticmaalno statement-gaan kor noogu abuuraya. haddii aan raadino statement-gaan aan isticmaalayno marka. hadda waxaan rabnaa marka inaan isticmaalno prepared statement, annagoo statement-ii ku bedeleyno prepared statement. waxaan isku daynaa marka query-ga meeshaan noo yaalo inaan bedelno oo aan ku bedelno prepared statement. parameterska waa haysanaa, waa name iyo ID. marka waxaan isku daynaa inaan insertion-kaan u isticmaalno prepared statement. aan tijaabina marka. waxaan abuuran doonaa number 1 midkaan comment aan iska saaro. waxaan leenahay prepared statement object ayaan ka abuuran doonaa. waxaan leenahay kadib connection dot prepared statement. waxaan u baasgareyn doonaa SQL query-ga. SQL query-ga waxaad sameyn kartaa marka hore inaad soo abuuratid ama aad inta ugu sheegtid. waxaan dhihi karnaa insert into student tablekan wax ku shubi doono waa student. meesha marka values markaan dhahno, meesha parameter aan sheegi lahayn maxaa la values aan sheegi lahayn, waxaa leenahay question mark comma ID-ga waa midkaas, kan kalena waxaa leenahay question mark. micnaheedu marka waxay tahay question mark-gaas aan ugu talagalnay number 1 waxaa qaadan doono ID column-kaas, number 2 waxaa qaadan doono name, oo table-keen wuxuu ka kooban yahay 2 column ID iyo name. meesha marka values aan sheegi lahayd hadda waxaa sheegi doontaa keliya placeholderskooda. waxaan sameynaa marka inaan abuuranay prepared statement. prepared statement-gii sidee u setgareyneynaa parameters, valueskiina u setgareynaa rabnaa. haddii marka aan isku dayno inaan values u setgareyno parameterskaas, waxaan dhihi doonaa bst oo objectiga noo abuurnaay dot set ID-geenu maxaa la dhahaa waa integer
namekuna waa string oo varjar noo yahay. marka waxaa laga rabaa marka aad sheegaysid columnka value-ga aad siinaysid waa inaad dhahdid set id-gan waa integer, marka waxaa leenahay set integer. haddii aan fiirno marka parameterskan waa laba parameter, kan number 1 uu qaadanaa, midkan wuxuu qaadan doonaa number 2. waa indexkiisu waa 1 based from left to right, kan waa 1 kanna waa 2. marka waxaa leenahay id-gu waa 1, meesha laga soo aqrin doonana waa variable-kaas oo aan text box ka soo aqrin. parameter ku xigo asagana wuxuu noo yahay maadaama varjar uu yahay, waxaan leenahay string, isagana waxaa leenahay parameterka labaad waaye, waxaan laga soo aqrin doonaa name. haddaa fiirisid parameter indexkeenu 1 oo ka bilaabanaa waa kan koowaad, midkaana qaadan doono, kan kalena waxaa lagu bedeli doonaa midkaas. haddii marka aan rabno in aan execute gareyno prepared statement-geena, waxaan sameynaynaa inaan dhahno bst.execute update, sidii statement-ga caadiga ahayd oo insertion-kaan oo execute gareynaynay ayaan u execute gareyn doonaa. marka waxaan abuuranay prepared statement, parameter aan u set gareynay, kadibna waan execute gareynay. aan tijaabino bal marka inuu shaqeynayo, soo ran gareyno, fiirinaynaa inuu shaqeynayo in kale. hal qof aan diiwaan gelinaynaa inuu kusoo darsamo in kale ayaan fiirinaynaa. marka login ayaan sameynaynaa, root siduu ahay haddaan qaldaneyn. hadda waxaan u diiwaan geshanay ilaa iyo 5 qof. haddii qof lixaad aan ku daro oo aan u bixiyo geedi oo aan dhaho save, haddii aad fiirisid geedi oo kusoo darsamay. waxaan isticmaalnay prepared statement. update oo isticmaali kartaa, delete oo isticmaali kartaa. tusaale haddii aan delete tijaabino inuu shaqeynayo in kale, delete aan u imaano koodkiisa, midka wax delete gareynayo waxaan isku daynaa marka in statement-gii caadiga aan prepared statement u bedelo. midkan hadda waa noo samaysan yahay oo waxaan isticmaalaynay statement, comment aan iska saaro, waxaan isticmaali doonaa prepared statement. maxaa leenahay marka, waxaan leenahay waxaa habbooneed marka prepared statement-ga korna kusoo abuurto, laakiin dhib ma lahan. waxaan sameyn karnaa prepared statement-gan in hal mar aan qaadno oo aan kor kusoo abuurno si object-gan aan dhowr jeer u isticmaalo. kan dhan ayaan qaadi doonaa, koran ku abuuran doonaa, marka global ayaan ka dhigan doonaa, meeshaana keensan doonaa. waxaan leenahay sidaan u abuurinaynaa. marka waxaan u imaanaynaa marka midka delete gareynayo qofka xogtiisa, waxaan u imaanaynaa delete. prepared statement-ga uu noo diyaarsan yahay, waxaan leenahay equal connection dot prepared statement. query-gan ayaan soo qaadan doonaa. marka query-ga inta noogu jiro waxaan leenahay delete from student where id-gu uu la mid yahay meesha marka aan sheegayno value-ga, waxaa leenahay hadda question mark symbol. hadhowdi marka waxaa u baahan inaan parameter siino, parameterkeena valueska ayaan siin doonaa. waxaa leenahay bst dot set, maadaama id-gu integer uu yahay integer aan leenahay, waana hal parameter. waxaa laga soo aqrin doonaa variable-kaas oo id number, variable hore noogu diyaarsanaay. hadhowdi markaan rabno inaan execute gareyno, waxaa leenahay waxaan rabnaa marka execute markaan dhahno in xogtii meesha laga delete gareeyo oo meesha laga bixi. marka waxaan leenahay prepared statement-ga ayaan execute gareynaynaa dot execute update. qofkii hadhowdi xogtiisa meesha waa laga saari doonaa, bal aan tijaabin inuu shaqeynayo. waxaan rabnaa marka in delete markii la yiraahdo xogtii qofka meesha laga saaro, waa default. waxaan leenahay marka aan tijaabino, geedi aan doortay, waxaan dhahay delete. sidaa ujeedid geedi meesha waa laga saaray. statement-gu iyo prepared statement-gu waa same, laakiin waxay kala duwan yihiin in prepared statement-gu uu qaadanayo parameters, xagga performance-gana uu ka fiican yahay. sidaan u abuuri doontaa, query-gii ayaa siin doontaa, oo query-gan waxaa sameyn kartaa haddaa rabtid in aad banaanka geysatid. waxaa leedahay string sql ama query waa dhigi kartaa sidaan. haddii aan rabo marka waxaan soo qaadi karaa query-gan dhan, meesha hadda aan inta ku sheegayay intana waan kasoo bixin doonaa, inta ayaan geysan doonaa. aan soo qaato ayada dhan,
intaan anaa soo jaran doonaa, waxaan geen doonaa marka meeshaan xalina marka intaan dii afiris marka string queryga wuxuu noo hayaa query la execute gareyn lahaa. marka waxaan leenahay prepare statement waxaan soo baas gareynaynaa query sidaan two step waa ka dhigi kartaa. haddii aad rabtid qaabka aan isticmaalnay oo one step waa ka wada dhigi kartaa, ama sidaan waa dhigi kartaa, sidaan kalena waa dhigi kartaa oo simply in hal mar aad one step ka dhigtid. waxaa dhigi kartaa connection dot prepare statementgiina u baas gareys simply one step iyo two step labada waa isticmaali kartaa. marka hadda waxaan isticmaalnay waa one step in aan hal mar abuurnay aan u baas gareynay maxaa la dhahaa xogtii. haddii aad two step ka dhigaysidna sidaan waa samayn kartaa, waa same marka. midaan iska tirtiro. hadda qofkii waan delete gareynay. haddaan rabo update inaan sameeyo waxaan samayn karnaa sidan. haddaan rabo inaan update gareeyo maadaama hadda midkaan intuu noo yaalo aan comment iska saaro, waxaan rabnaa prepared statement inaan isticmaalno. waxaan leenahay marka connection dot prepared statement waxaan u baas gareynaynaa marka statementigi meeshuu noo yaalo. maxaa leenahay marka update student tablekeeni set name equal meesha magacaan sheegi jirna waxaa leenahay question mark where kaloo soo isticmaalaynaa si ayaga dhan isugu update gareen ayadana question mark aa leenahay. hadda haddii aad fiirisid meeshaan waxaa noo yaalo two parameters, laba parameter one waa name, parameter two na waa id. wuxuu nooga baahan yahay marka parameterada inaan u set gareyno, parameterskii values inaan u set gareyno. waxaan leenahay pst dot set kan ugu horeeya waa string one wuxuu qaadan doonaa nameka wixii laga soo akhriyay, magaca keliya aan update gareynaynaa, idga hore u haysanay. hadda haddii aan isku dayo inaan dhaho meeshaan set integer maxaa dhici doonaa fiirin error dhici doona. wuxuu u baahan yahay in aad maadaama name oo string uu yahay waa inaad string ka dhigtid oo variableka columnkaas uu u baahan yahay waa stringa ka dhiganaynaa. marka idga u baahannahay waa integer. waxaan leenahay set integer isagana waa parameterka labaad. haddii marka aad indexka aad khaladid error dhici doona. waxaan leenahay marka isagana id numberkeeni oo tableka laga soo akhriyay ayaan set gareynaynaa. stepka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa in aan execute gareyno prepare statementgeeni. waxaan leenahay marka bst dot execute update. haddii hadda aan fiirno marka in wax la update gareyn karo ayadana waa la update gareynaya. meeshii marka aad isticmaali lahayd statement ayadana waxaan isticmaali doonaa maxaa la dhahaa prepared statement. hadda haddii aan cimraan cali aan ka dhigo cimraan cabdullaahi, haddii aan isku dayo inaan u bedelo, haddaa fiirisid cimraan cabdullaahi uu noqday oo update ayaa lagu sameeyey. waxaan isticmaalna marka prepared statement. selectionkan waa u isticmaali kartaa haddii aad u baahan tahay inaad wax soo select garaysid ayadana prepared statement waa isticmaali kartaa. tusaale haddii aan fiirino bind table viewgan meeshaan hadda result set waxaan isticmaalnay statement. waxaa kaloo isticmaali kartaa prepared statement. haddii aan prepared statement isku dayo inaan isticmaalno aan tijaabino result setka meeshiisa ii yaalo. intaan hadhowda waxaan ku bedeli doonaa prepared statementigeyga. intaan waxay noqon doontaa marka intaan waxaa leenahay prepared statement dot equal connection dot prepared statement select star from student. hadhow marka waxaan leenahay result setkii waxaan ku shubi doonaa pst dot execute query. meesha execute update aan leenahay maadaama select ee meesha taalo aan rabnay in result set la soo celiyo. waxaan isticmaali doonaa execute update. waxaan isticmaali doonaa aan dhaho cafwan execute query. waxaa jira marka saddex nooc oo wax loo execute gareeyo. saddexdaas nooc haddii aan fiirino number one waxaa jiro mid la yiraahdo execute, waxaa jiro execute query iyo execute update. execute haddii aad isticmaashid statementii uu execute gareyn doonaa, laakiin wax resultii toos u soo celinaya male. wuxuu soo celin doonaa keliya boolean value. statementigii ama prepared statementigii uu execute gareyn doonaa
laakiin boolean value ay soo celin doonaa. Execute query markii aan dhaho waxaa badanaa lala isticmaalaa haddaan rabo in result set la soo celiyo. haddaan rabo marka in result set la soo celiyo oo aan select isticmaalayo, waxaan sameyn doonaa in aan isticmaalo execute query. haddii aan rabo in update ama delete ama waxyaabahaas aan sameeyo, waxaan isticmaali doonaa execute update. ayaga waxay kusoo celin doonaa integer value oo u dhiganta ama ka hadli doontaan meeqa number of rows ama meeqa row ayaa la effect gareeyay. tusaale ahaan update aan sameeyey, meeqa row update gareys mati, delete aan sameeyey, meeqa row delete gareys, intaasuu ku sheegi doonaa. haddii marka aad rabti inaad isticmaashid update iyo delete, waxaad isticmaali doontaa execute update. haddaan rabo inaan isticmaalo result set in lasoo return gareeyo, execute query. haddii aan rabo si caadi inaan execute gareeyo, waxaan isticmaali doonaa execute. anaa hadda waxaan isticmaalaynaa marka execute query. aan tijaabina bal inuu noo shaqeynayo. marka ugu horeyso aan soo ran gareyno, aan dhahno root. haddaa fiirisid wuu shaqeynaa, weli xogta wuu soo akhrinayaa. waxaan isticmaalnay prepared statement. markasta waxaad sameyn doontaa marka in aad isticmaashid prepared statement instead of inaad isticmaashid statement. waxaa ku bedelan doontaa marka inaad isticmaashid prepared statement. prepared statement marka wax weyn maahan, kaliya un waa inaad object ka abuuratid, statement-iga usoo gareysid, meel kastoo value aad ku sheegaysana waxaa ku bedeli doontaa question mark. hadhowdina waxaa siin doontaa parameteradii values adoo u fiirinayo from left to right. kan ugu horeeya 1, kan ku xiga 2, sidaasay ku socon doonaan. waxaad weynna maahan haddii aad fahantid qaabka u shaqeynayo. kaliya waa 3 step. 3daas step waad arkaysaa qaabka u shaqeynayaan. intaasna ku joojinayna. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.